Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhammaan walaalahay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa markale walaashin Xabsa Shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Haddii aad nagu cusubtaa fadlan subscribe noo saar. Hadaa hore noola joogtaan aad u mahadsan tahay. Maanta waxaa idiin wadaa qado ama casho alaaba ka dhigan kartid oo khatar ah oo gurigeena aad looga jecel yahay. Ilmahayga yani aad u jecelnahay. Moos waaye halkaan waxaa ku haya moos ceyriin ah waa soo fiiqay. Kabacdi maxaa la dhahay biyo aan dabka la saaraya oo waa bisleenaya mooska waxaa la rabaa maanta in maraq laga dhigo ma fahanteen. Moos ceyriin horta weligaa ma cuntee ma karsatay haddii aa cuntee hore hoos commenting nogula wadaag. Marka ugu horeysa aa cunta see dareentay adi ma karsatay mise waa lagu kariyay. Anyway mooska waa soo fiiq waa soo dhaqay. Haddana waxaa ku ridaa digsi pressure cooker-ka ah wax yar cusbo iyo xoogaa biyo ku daray. Dabkaan saaraya inuu ii bislaado kaligiisa. Halkaanne waxaan ku haystaa yaanyo waxaan rabaa inaad dalacdo yaanyadii hadhow mooska aan ku darsan lahay. Maxaa la dhahaa yaanyo dalac bilaash camal leh waa ma fahanteen wax weyn ma ahan. Wallahi maraqaan hadda baratiin aad u macyahay. Ma ka daaleysid waa fudeed maraq badan oo ilmaha kaaga dhargayaan u naqanayaa oo maasha Allah ilmaha koris u baahan moogta intay yar yihiin cunto fiican in la siiyo waaye. Cayil korta muhiim ma aha laakiin ilmaha hadday caafimaad ku qabaan wax fiican waaye. Anaga badanaa Soomaaliyeed cayil aan raadinaa ilmaha hadday caatiin waxaa la dhahaa ilmaha maxay caati u yihiin. Ilmaha hadday cuntada u karisay ku cunayaan alxamdulillah kuwa caafimaad qabaan okay waa waxba ka walwalin. Marka halkaan waxaa ku shubtay yaanyadii basashii iyo shiishiid xawaaji kaari yar ku darsaday. Spices ka badanna ma jecli waayo yani cuntada dhadhankeeda inuu iga bedelaan spice ka dadka jecel mihi. Yaanyada inta ii karays meeshaan waxaan ku kariyay bocor guduud. Bocor guduudkan xoogaa ceyriin u ahay tanaa soo gatay. Marka bocor guduudka biyaha ku soo kariyay waa soo shiiday. Waxaan rabaa inaan ku darsado chapati-ga ka waran bocor guduud chapati lagu daraa weli ma aragteen. Bocor guduud chapati waxaa ugu darayaa si oo jilaac iigu naqdo ma fahanteen. Bocor guduudkana nafaqo badan uu leeyahay ilmaha wuu u fiican yahay. Marka burkiya waxaan ku daray bocor guduudkan soo shiiday caano booro kisir saliid ah iyo kisir cusbo ah. Haddaa sokor rabto sokor yar ku darsan kartaa laakiin aan sokor ma jecli inaas chapati ku darsado. Marka si fiican u soo xashaya oo kal iyo laab ah. Waxaa la rabaa dhowgaaga nadiif liisho inuu ku naqdo gacmaha ku daalay kow dheh 10 daqiiqo inaa xashtid waa kow dheh daarti inuu chapati jilaac meesha kaaga soo baxo. Marka si fiican u xash haddaa daashid xataa una naso okay. Markii aa qasay dhowgii iswada heesto dhan amiis ku wada fidsaday asaga dhan aa fidiyay kabacdi halkaan hadda saliida marinooya wax yar bura ku shushubaya. Waxaa rabaa dhowga xabad intaa fidi lahay ma aragto oo chapati-ga ana waxaa jeclaa mar labaad inaa yani duubo inaa fidiyo duubo. Marka mar labaad intaa fidi lahay hal mar aa wada fidiyaa sidan. Hadda qaabka u jeedina u jarjarooya kabacdi waa dhigayaa 10 ilaa 20 daqiiqo maxaa la jilaac ku naqanaya bacna dhab ku siis ku daboolo si uusan qolof kaaga yeelan ama uu kaaga adkaanin. Marka intuu kaas ii aalayo maraqayga u laabtay yaayadii way ii bislaatay si fiican u jajabinayaa maxaa la dhahaye mooskina waa kana si fiican u bislaaday. Marka mana rabi inuu iga jajabo si ayar u soo qaadaya waxaan ku darayaa yaayadii ii bislaatay maxaa la dhahaye wax kale oo spice ma ku dari rabi. Maxaa la asaga la isku hurinaa maraq yani biyo oo mooska ka baxane waa ku biyeystay ma fahanteen miska tuuraysid. Maxaa la dhahaye si ayar aan u walaaqay mooska ka wada burburin because waxaan rabaa inaan arko macni mooska meesha ka dhex arko oo san iga batiiq iga naqanin ma fahanteen. Markuu si fiican 10 daqiiqo mooska yaanyo isku dhex karayeen waxaan ku daray basal. Kabacdi waxaan ku darsanayaa kabsar iyo toon aan soo shiiday ama aan soo tuntay. Marka waxaan ku daray kabsar iyo toon cunuga ay soo galay iska mashquulinahay. Kabsar iyo toon aan ku darsaday kabacdi waa daminay oo billahi tawfiiq maraqayga soo diyaar ku yahay. Macaankiis wallahi ma laga sheekeyn karaan kuna qofka cuno bas sheegi karo. Soo barobay insha Allah mooska ceyriinkan waxaan ku bakhaarada mooska ka helaysaa kaaliska arag waaye. Kabacdi hadda chapati iyo cabaar ii yaalay waa soo fidiyay xoogaa fidsaday birtiya si fiican u kulaatay markaasaan dubayaa chapati fidiskiisa iyo dubowgiisa waxa waaye is no big deal mahano marba haddaa taqaanid u baahanid chapati aan hor u sameynayna waa soo geliya qofka u baahan
jabaati aad u jilcan waa soo fiirsan kartiin insha Allah. Please waxaan ka codsanayaa inaad channelka share ii dhahdeen saacadahan aad fiirsatiin oo yacni video markaa ku dhufatiin intaasas ugu dhufatay ha ka tagine hore u dhameyso haddii videoga xataa adi oo ku quseynin maxaa la inaad daartid iskaga tag walaashaa waaye mogta daqiiqada inta u buuxsamaya muhiim ay u tahay ayada. Anyway jabaatiga saas ku wada dhameynayaa wax yar saliid ku dubaysaa labada dhinac markuu ka gaduutana kuleysaa dhab ku siisanaya amii kaleeto mara inaad ku duubtid bac gashanay soo jilaac kugu noqdo hadhow oosan kaaga adkaanin oo leerta kaa gelin macnaha soo marka maasha Allah walaahi qurux macaan oo ahaa anaga qadaa ka dhiganay si fiican aan u enjoy gareynay soo marka hadda marqeena waa ka soo guranayna bil caafiya wal hana wal caafiya mal dhijiri soo jabaatigana waa ka soo jilaac kali laabo noqday maxaa la dhahay ka bacdi waxaan sameystay hilib gooni oo kalaan kale hilib geel gooni u soo kalaan kale korka uu shubay ma fahanteen dhadhankiisa hilibka saa uu la cuno laakiin aniga geedka mooska hilib ma kula karinin ma fahanteen kaligiisa kaliisa arkaysan hilibkaasna gooni u soo shiilay marka jabaatigaaga iyo mooskaaga iyo hilibkaaga dhab isku siiyaan ku dhahay macaan kaal iska arag soo dhawaada ma mahadsantihiin jazaakumullahu khayr.